الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan noo bilaabmi doonaa hadduu ala yiraahdo barnaamijkii si fudud u qaado barmadka oo runtii aan ka cudur daaranayo muddadii faraha badnaa ee uu hawada ka maqnaa oo sabab badan oo runtii inaan inaga lahayn bal dajaal cabudyo ah ay leeyihiin yaa intaas ay nagu qaadatay inaanan hawada ka maqnaano. laakiin saas oo tahayna marar badanna waa horanoo u sheegay oo kelibo kale noocan oo uga hadlay. si kastoo hakad u yimaado meesheeda un kasii bilaabeynaa waqtigeeda noqotaba muddo hadda un dhowr sano laga joogo kadib inaan isla hawshii aan dib ugu soo laabano aan meesheeda kasii bilaabnana waxaa keenaysaa ballantayadii ahayd inaan u joojin doonin. iyo qodobka labaad oo runtii oo dad walaalo ah oo runtii qaarkoodna ku najaxay qaarkoodna igaba codsaday inaan soo badiyo. qaarka najaxay iyo qaarka codsadayba mar kale iyo mar kale hawada idinka salaami. waxaana dhammaantiin idin rajeynaya inaad mar horeba ku najaxdeen oo aada ku guuleysateen. runtiina codsigiina waa sababtaas aa idin soo sheegay iyo igaga soo daahimaan. markii horeba waxay ahaydba inaan buugga barmadka oo dhanba aan si dhammaystiran aan ugu soo gudbino. maca alasaf laa baasa kolley waa haddaa un fursad adigu fursadda waa waqtigaas aad markaas joogtid saa uga faa'iidaysatid. marka adigu wixii hadda ka dambeeya waxaan rajeynayaa in ay si asbuuciya aan usoo gelgelin doono haddii ala yiraahdo ilaa aan ka dhameyno. walaalaha kale kolley shalay waxaan arkayay gabar oo naga weydiisa ohaya xaqiiqatan markii saniska loo fiiriyo waa ku anfacaya, waa aqoon guud. laakiin shuruucda miyaa Minnesota iyo ohio waa xaqiiqa in ay dhinaca shuruucda tigidka iyo trafficka iyo waxaas ay ku kala duwan yihiin. laakiin si aqoon guud iyo calaamadaha iyo waxaas waa kaga faa'iideysan kartaa. insha allahu ka faa'iideysi wacan waxaana sidaan idinkugu ballanqaabnay. ilaahay hanoo fududeeyo soona duceeya. kolley wax aan duco ahayn idinkagama baahnaba. ujeedadayadana waxay tahay inaan ku sifoono qolkii rasuuluna maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo khayrunaasi yiri anfacahum linnaas. dadka waxaa ugu khayr badan koodii dadka ugu anfaca badan. marka insha allahu kuma koobnaan doona haddii ala yiraahdo barmed casharo kale oo mid diimeed iyo mid maadiba intaba waa soo gelgelin doonaa hadba siday noogu fudaato. haddana qeybtii saddexaad qeybtii koowaad faa'iidada waa aragnay. qeybtii labaadna sidoo kale horta runtii dadka aada waxay u jeclaysteen qeybta af soomaaliga oo waxaaba la kulmayba 2019kii ma ahayd mise 18kii aakhirkeeda maray ahaydba gabar tiriba su-aalaha oo sidoodii yaaba imtixaanka ku galay. maasha allah maya waa xaqiiqa runtii af soomaaliga horta aan kusoo bandhigayo ama kusoo qorayaba waa af soomaaliga aana cidnaba ka boodi karinba inay sidaa u qorto maahin. oo waanaad arki doontaan marka imtixaanka gelaysaan waa indhihiina idin markhaati noqon doono. sababtoo ah sida ugu dhow ugu saxsan ee ereygaas lagu turjumi karo yaan ugu turjumay. wixii markaas ayaga haddii qoladooyinka oo testiga qaadaya ay si kale u geliyaan ayagaa ku ceeboobaya. sababta waxay muujinayaan in oo dee dad oo midhaa sujuu af soomaali aan garinin oo kale inay u dhiibeen oo waxa u gelgeliyeen. waxay ku qasban yihiin marka sidaa aan usoo bandhignay inay su-aasha u qaataan jawaabtan u qaataan. midna waa idinkaga sii hordhici sida hadda aan su-aalaha usoo bandhigayo oo
hadda nambaro ma siin, a b c d ma siin. waxaan u siin waxay tahay waxaa laga yaaba horta sidaan oo kale inaad ku gashid. waxaa kaloo laga yaabaa aan taas aan uga fogaado waxay tahay waxaa laga yaaba jawaabta oo hadda c-ya aan c-ba ka dhigay ama d oo kale aan ka dhigay ama a aan kale ka dhigay inaa xagga markaa tagtid b-di ay jawaabta ay noqoto ama xaraf kale ay noqoto. marka su-aasha waa soo qaba aya ahayd si aada ugu xisaabtamin number iyo xarafba intaba waa ka jaray. sidaanoo kalena inaad ugu gashidna waa laga yaabaa, laakiin mar walba waxaa fiirsataa oo mar walbana idinku adkeenayaa jawaabta saxa ah raacso. insha allahna waana mahadin doontaan. waxaana rajeynayaa qofkii su-aalahaasi sida ay tahay uu u qeyba, waxaa u rajeynayaa in uu sida ugu dhaqsiyaha badan uguna fudud uu kusoo qaadan doono barnaamijkiisa. haddana waxaan noo bilaamayaa ilaa iyo 5 su-aalood hadda soo bandhigaynaa. shantaas su-aaloodaan ku wadanaa oo runtii dee waqtiga ii saamixin iyo marka inay wixii aad soo diyaarsid haddana diyaarintoodii waxay qaadanaysaa inaad soo turjuntid, haddana soo turjumidii waxay qaadanaysaa waqti dheer. waa adiga asbuuciiba 5 su-aalood. runtii waa wax loo dhabar adeegay. inkastoo 10 su-aalood laga dhigi karo, laakiin waxay u baahan tahay juhdi fara badan iyo rag shaqaalo fara badan iyo wax badan u baahanta. marka insha allahu shantaasaan ku wadaynaa. su-aasha u horeysa markaa ma dhahayo horta su-aasha u horeysa ma dhahayo sidaanay su-aasha koowaad iyo labaad u noqonaysaa, laakiin shanta su-aalood aan soo bandhigayo tan ugu horeysa waxay tahay markaa calaamadda bridge. calaamadan haddaa aragtid u fahan in uu bridge kugu soo fool leeyahay. si fiican iskaga hubi haddaa Minneapolis joogtid iyo haddaa Minnesota oo guud ahaan joogtid ama istiidada kale joogtid. calaamadani ha ku kasoomin, ana ku khaldamin. snow blue iyo jawaabaha kale adiga oo answers ay ku siinayaan oo dhammaantood wada khaldan ha ku kasoomin. gabi ahaanteedana u qaadaba una fahan in calaamadan saankan ba haddaa aragtidba ay lagu sheeg hataa haddaa wada saaran tahay in ay kugu soo fool leedahay dhowr adiga fiid kadib bridge inaad ka gudbi doontid. bridgekaas wuxuu noqon karaa mid cariiriya ama mid uu iska waasac. marka waxay ku xiran tahay hadba adiga sidii aad markaas aad ugu diyaar garowdid. waxaan ku rajeynayaa in oo aad testigana kusoo guulaysan doonto. kolley haddaa wadada fuushidna adaa kala baran doonaba. marka su-aashaasi waxay ku oran doontaa markii aan dhinaca su-aalaha usoo laabano, waa maxay macnaha calaamadani? waxay kaloo u qormi kartaa maxaa loola jeedaa calaamadan. marka annaga waxaa joos goreynay sida uu ingiliishkuba ugu qoran yahay inaan usoo qaadano. oo su-aashu waxay noqonaysaa waa maxay macnaha calaamadan? joosaska ay ku siin doonaan ee 4 ah mid baa ka saxsan, 3 kalena waa feeg ay kugu khaldayaan. waxay ku oran karaan sida ani hadda aan waa halkaas taas aan kugu cadeynayo baraf xaare ama baraf xaaqe. labadaasba xaaqe iyo xaareba waxa usoo geliyay maadaama ay labadaas erey oo inta badan oo dadka ugu badan ay ku kala hadlaan oo labada lahjadood ee Soomaali u kala badan tahay ay tahay. yaa soo usoo qaatay baraf xaare ama baraf xaaqe yaa hortaada ah. taas waa khalad, wax ka jira ma jiraan. snow blow mideeda kale erayada laftooda markii oo la tarjumayo runtii warar xoog leh ka taagan. sababtoo ah annaga baraf xaare wax la yiraahdo iyo waxaasba shaqo kuma mana naqaano. oo snow blow annaga meelahana ugu nimid gaari baraf xaaqaa la leeyahay iyo mashiin oo gacanta laga riixayo baraf lagu xaaqayo iyo waxaasoo dhan waa waxyaaba inta ugu nimid. marka sidii af Soomaali oo sidiisii loogu helo xoogaa waqtiga qaadatay waqtigana qaadanaysaa.
insha allahu dee waanasan kusoo guuleysanay baraf xaari aan ugu yeernay calaa kulli xaalin si kaloo loogu yeeri karana waxaan u malay inaysan jirin qofkii hayana waxaan rajeynayaa inuu commenteska nagu siiyo haddii si kaloo lagu sheegi karaba taas waa khalad meeshaas baraf xaari ma ahan ee waa bridge ah kugu soo fool leh midda waxaa kaloo jos ahaan lagu siin karaa qeybiya yaa hortaada ah taasna ma jirto meel dhisma ka socota yaa hortaada ah taasna ma jirto jawaabta saxiixa maxay tahay buundo cidhiidhi ah yaa hortaada ah cidhiidhiga waa iskaga daray iskagama daray ayto narrow bridge ay leeyihiin marka narrow bridge wuxuu noqonayaa buundo ama jam ah ama cidhiidhi ah oo yani laba leen camal ah oo inaad si taxadar ugu gudubto lagaa rabo yaa hortaada ah waay marka jawaabta saxa ah waxay tahay buundo waay adiga ilaasho calaamadda haddaa aragtid wixii buundo kuu sheegaya ama ciriiri ha kugu sheego ama buundo caadidaas ka kaa yidhaahdee jawaabta saxa taas waaye saas haddaa u joosgaraysidna waxaan kuu rajeynayaa in aad su-aashaasi su-aalaha aada kusoo qaadaysa bermedka ee noqdaan ilaahna ha kuu fududeeyo su-aasha labaad aan soo qaadanayna waxay tahay sawirkan sida ka muuqata waa gaari yar oo cad oo cross gareynaya intersection isgoos waxaana dhinaca kale kasoo socdo ambalaas maahane gaarigii dabdamiska oo qeylinayo ordahay masaafay isku jiraan waa aragtaa maxaa sameynaysa ma meeshaad ku istaagaysaa oo joojinaysa ma isbiida ku dhaqaaqaysa waxaasoo dhan markaad aragtid joosas badana lagu siin doonaa laakiin waxaa laga rabaa xataa haddaad gaari kaxeynaysid ama imtixaan horta hadda imtixaanayba noo joogtaaye jawaabtoo saxa waxay noqonaysaa inaad hore u dhaqaaqdid oo isgooska ka baxdid isla markaasna labada leen kii kuu dhow bidix iyo midig aad bull up aad ku samaysid oo isla markiiba leen qabsatid aana halkaa istaagtid si hadduu uu asaga meesha jihada u socdo jihada hadda aad ujeedid ay tahay oo dhinacu camera u helo hana khalkhalin haddaad daro markaas aad daraafgareynaysid hore degdeg ugu dhaqaaq isla markiiba bull up sameeya marka ama bull over marka waxa waaye waa adiga horaad u dhaqaaqaysaa isla markiina wadadaad ka baxayso marka waa intaas marka waxaa laga rabaa keliya haddii ay bidix ku dhowdahayna bidix ku leemi gaariga haddii ay midigta ku dhowdahayna leenka midig aad ku aadan tahayna midigta ku leexi gaariga isla markaasna istaag oo hasii dhaqaaqin su-aalaha marka su-aasha waxay leedahay waxaad dhex taagan tahay isgoyska waxaa qaylinaya oo leerarka guduudka iyo buluugaba waa aragnaa markii u shidan yihiin gaariga gurmadka degdega maxay tahay inaad samaysid su-aasha oo sidaysaas u qormaysa marka ambalaas ha noqoto ama boliis ha noqoto ama gawaaridan damdamiska ha aadaana leerar adigo guduud iyo buluug isku jira inta badan shitaa weliba adigoo hadda gaarigan adiga oo asaga damdamiska inta badan waa asaga wada red waayo marka adiga nalaalkaas marka ay shitaan ay alarm kala yeerinayaan waa sida aan soo sheegnay haddii uu kugu yimaado waxa aad sameyn lahayd su-aasha marka mar kale waxaad dhex taagantahay ku yidhaahdeen isgoyska waxaa qaylinaya oo leerarka guduudka iyo buluugaba u shidan yihiin gaariga gurmadka degdega maxay tahay inaad samaysid joosaska ay ku siin doonaa doorashooyinka su-aalaha jawaabaha afarta ah mid waxay ku oran doonaan xawaaraha gaariga kordhi kuna sii soco tooska wadada dee hore usii soco waa orod shaqadaada iska wada gaarigaada isbid ku kaxee hore u dhaqaaq taas ma jirto waa khalad haddaa taas aad tiraadid aday ku taalaa dhinaca bidix uga bax isgoyska
haddii dhinac bidix ma kuu dhow yahay xaggees uga bixi karta mise taasna waa khalad ha ku fududaan. jooska saddexaad ay ku siin karaan wuxuu yahay dhinaca midig uga bood isgoyska ama uga baxba, ayadana waa khalad sababtoo ah isgoyska dhex taagan tahay. hadday aad dhinaca bidix iska aadidna waxawaaye waxaa laga yaabaa inaaba gaarigiiba aaba aad ka hortagtid. dhinaca midig haddii aad u dhaqaaqdidna waxaa laga yaabaa in aad asagiga burugtid oo toos ugu socday. markaa gaari kaxeynayso waa meeshada, laakiin saddexdaas joos waa saddex joos oo khaldan. maxaa sax oo lagaa rabaa? horey ugu dhaqaaq isgoyska kadibna ka bax. isgoyskaad waad dhaafaysaa, isla markiiba xaggee uga baxaysaa? leenka midig ama leenka bidix kii kugu dhow aada uga baxaysaa, meeshaana ku istaagaysa intuu gaarigan kaa gudbayo. jawaabtoo saxa waxay noqonaysaa hore uga dhaqaaq isgoyska kadibna ka bax. su-aasha markaa tan oo sawirkan marka waa calaamad oo runtii inta badan ee dadka kusoo dhacaan sida aan xogta aan hayo. calaamadan waxay muujinaysaa gaarigii oo simbireerxanayo oo aan toos u socon karo. sida la ogyahay maxulayada oo barafka uu jiro, adigu laamiga inta badan barafkaasna waa markuu weedarka hoos u dhacaba waa sii adkaada ilaa uu heer dhal u gaaro oo cagta iyo shaagaba ay qaban karinba. marka marar badan waad arkaysaa ama waad aragteenba in uu wadada laga bixi. marka waxay muujinayaa sawirkani wadada kaa horeysa slippery waay. slipperygu waa simbiriirxasho inaan lugta ama taayirka dhulka ku qabanayn. marka calaamadani ama su-aal ha lagu keeno ama sideeda dhanba u ogow meeshaad ku aragtidba inay tahay meel uu slippery ka jiro oo lagu sambireerxoonayo oo aanay cagtu qaban karin, shaagna uu qabanayn. marka su-aasha waxay noqonaysaa maxaa loola jeedaa calaamadani? kow, doorashooyinka lagu kala siin karo waxaa ka mid ah wado raf ah ama jay yaa hortaada ah taxadar u soc. taas waa khalad. wado jay la yiraahdo iyo wado raf iyo midna ma jiraan. jawaabta markaan waxaan soo geliyay qaybta labaad, laakiin inay qaybta labaad soo noqonayso ama doorasho saddexaad noqonayso xagga ugu tegaysa adiga waxaa ilaashataa un keliya jawaabtan bas. wadadu waa siibasho ama simbiriirxasho ee aayar u soco. waaba intaas. slipperygu waa siibashadaas oo gaarigu kaa babaxsanayo ama taayirka uu ku simbiriirxoonayo ee aayar u soco. waa marka haddaa speed ku gashid waa la soconaa oo kulley dadkan oo meelaha hadda ku nool waa ogyihiin inta badan waxay shilalka ku yimaadaan waa qofka oo si adiga careless intuu u dhaqaaqo asoo xawaareyna gaari hadhowta control ka baxsado uu shil ku galo. xiliyada shilalka la galana waa xiliyada slipperyga u jiro inta badan. joos ka mid ah joosaskaas wuxuu ku oranayaa waxaa jira goolad ay boori ku dhowdahay ee aayar u soco, kaasna wax ka jiraa ma jiraan, ha ku lugoy. waxaa hortaada ah waa joos ka mid oo afraad oo lagu siin karo. waxaa hortaada ah wado qalqaloocan ee raac calaamada. taasna kuma sii jirto, waa marar habaabin kale, waana maran habaabinta ugu dhow oo aad ku khaldami kartid oo sawirka. sababtoo ah hadda wuxuu muujinayaa wado qalqalooco inuu gaarigan ku socdo, taasna ma ahan. waa slippery jiro oo gaariga ma controli kartid oo waa leexleexanaya loola jeedaa. marka calaamadan haddaa aragtid ama wado ku aragtid ama imtixaankaba kugu timaadaba waa slippery meesha jiro waay. marka jawaabtoo sax waxay noqonaysaa wadadu waa siibanaysaa ama waa simbiriirxasho ee aayar u soco. ka gudub. tan waxay muujinaysaa waa gaarigii booliiska oo howlgal ku jira oo markaasi uu u daaran yahay falaashadii oo
buluuga iyo gaduudka, inta badan buluug iyo gaduud asaa isticmaala. adiga hadday gadaalaa uga timid leen isku leenaan ku jirtaan, maxaad sameynaysa? ma istaagaysaa? ma iska ag maraysaa? ma xawaaraad ku dhaqaaqaysaa? waxaasoo dhan dhib iyo waxay ku keenaysaa iyo tigid. waxaa lagaa rabaa haddii aad adiga intuu kusoo dhaafo oo hortaad istaago, waxaa lagaa rabaa inaad leenka markaas asagoo kule inta badan dhinac buu istaagaa, ama hadduu raba dhexdooda iska istaago. boliiska hadda waa anaa awood la waaye, adiga waxaa lagaa rabaa inaad ku dhaaftid leenka ugu fog, inaa inta aad qabsatid aad sidaas si tartiiba ugu gudubtid, aadan u dhawaanin, isbiid aadan ku dhaafin. haddii uu kaasoo horbaxo leenka ku jira maahine leenka ugu shisheeya inaad qabsatid. marka su-aashu maxay leedahay? waxay leedahay waa maxay waajibka inaad samayso markuu kuu muuqdo ama dhaafayso gaariga gurmadka degdega ah oo taagan. gaariga gurmadka degdega oo taagan uuna leerarka falaashaya oo ka siinaya waddo 2 leen oo dhinacaaga ah. wuxuu taagan yahay waa adiga 2 leen waaye, waddada aad ku socotid oo leen ka mida uu haystaa. waa su-aashu mar kale aan kugu socosho waa dheer tahay. waa maxay waajibka inaad samayso markuu kuu muuqdo ama dhaafayso gaariga gurmadka degdega oo taagan? waa taagan yahay, waa gaari boliis, waa taagan yahay, howlgalu ku jiraa, iyo sabab kaleba u taagna asay u taalaa, una leerarka falaashaya. inta badan markay howlgalka ku jiraan leerarkaas waxaa u shidan oo madaxa u saaran ee buluug iyo reedka ah, oona ka bidhibidhigsiinayo oo falaashku soo laalaabanayo. waddaduna marka waa 2 leen oo dhinacaaga ah. marka leenka ugu fog, marka leenka uu ku jiro hadday midigta ama bidix tahay, leenka kan ugu fog ee kan labaad ah mar walba ku dhaafaysaa, si tartiibaan uga gudbaysa. joosaska lagu siin karo marka waxay tahay kala wareeg adoo u jeesanaya dhinacii aad ka timid. u-turn sameeyaa lagu yiri. taas ma jirto. u-turn wax aad u samaysid ma lahan, waa uun inaad tartiib u dhaaftid lagaa rabaa. jooska saxda ah wuxuu noqonayaa tartiibi oo xawaaraha dhinacna una dhaqaaq leenka ugu fog gaariga gurmadka degdega ah. marka halkaas waxaa iga khaldamay qoraalka dhinac ma igama khaldamin, dee adigu waa iga go-ay, oo waxaa lagaa rabaa tartiibi oo xawaaraha dhin. anaaba meel kale aaday. jawaabta saxa waxay tahay tartiibi gaariga oo xawaaraha dhin una dhaqaaq leenka ugu fog gaariga gurmadka degdega ah. waa intii aan soo sheegaynay. gaariga gurmadka degdega hadduu leenka koowaad ku jira, leenka labaad qabso. hadduu leenka labaad ku jirana leenka koowaad u laabo. waa intaas. marka jawaabta sax waxay noqonaysaa tartiibi oo xawaaraha dhin. isbid lama rabo. haddaad ku socotay 30 waa inaad 20 timaad. 20 haddaad ku socotid 15. yacni uusan ku dareensan inaad markaa xawaara ku socotid. asaga laftiisa bini aadan waa, waxaa laga yaabaa inuuba shaki yimaadaba. marka si tartiib u dhaafo waayo. joosaska ama dooqyada lagu siin doono ee doorashooyinka lagu siin doono waxaa ka mid noqon karaa shido nalalka fariijooyinka khatari inay jirto muujinaya. taasna uma jirto wax aad hadda u shidatid malaha. jooska kaloo lagu siinayo waxaa kamid ah istaag oo joogso. taasna meesha kuma jirto, mana taalaba. oo runtii dad hadda koox dad badan oo sameeya waa jira markii police arkay in xagga koontiga istaagaan
inay fiirsanayana ka ah inay isleeyihin aas ku agdhawaanayo yuusan ganaha ku suranna waa laga yaabaa. marka joosaskaas oo dhan ma jiraane waxaa lagaa rabaa inuu leenka ku jira maaha leenka kala qabsatid sidaa ku dhaaftid waa markaad draft garaynaysid jawaabna markaad bixinaysid oo imtixaanka aad gelaysidna waxaad qaadanaysaa tartiibi oo xawaaraha dhin xawaaro kastoo ku socotid waa inaad dhintid 20 haddaad ku socotid 15 ka dhig 30 haddaad ku socotid 20 ka dhig 30 ka badanna de maba shaqaynaysaba laakiin xataa 30gaas laftiisa waxaa lagaa rabaa inaad 15 camal keentid oo si degan oo nadiifa u dhaaftid asooba kaa shakin ama wax kale oo kuwa arag. marka tartiib oo xawaaraha dhin una dhaqaaq oo leen bedelo kan ugu fog markaas aad u jirsan kartid gaariga gurmadka degdega ee booliiska ama ha ahaado ama ambalaas ha ahaado ama ha ahaado kii kale muxuu ahaa dabdamis adigu inaad leenka ku jira maa leenka kala qabsatada laga rabaa jawaabta saxiixna taasay noqonaysa. tan sawirkan wuxuu muujinayaa gaarigii oo falaashkii yelowga ahaa ama jaalaha ama huruudda ahaa asoo isgooska sii gelaya oo ku yimid maxaa sameynaysa. kolley inta badan dadku waxay sameeyaan waa iska galaan waa xawaaray kusii qaadaan caafiya taas waa khalad tigidaana qaadanaysaa markaas haddaada markaas aad isgooska aada ku dhex jirinba waxaa laga rabaa inaad istaagtid. jawaab ahaanna waxay noqonaysaa waa u tegi doonaayo marka bataatanba haddii adoo bartanka markaas ku jiro oo isgooskiiba inta galay madaxa la galay oo jaalaha aada markaas korkaada aada ka arag oo yelowgu markaas kuu muuqan waxaa khalad ah inaad ku gashid adoo yelow arkaya oo huruudda ku shidanta. marka su-aashuna waxay leedahay haddii aad aragto nalka huruudda ah adigoo sii gelaya isgooska waxaa waajib kugu ah inaad xawaaraha kordhisid wax ka jiraa ma jiraan inaad kusii socoto xawaarihii aad ku socotay iyana wax ka jiraa ma jiraan inaad gudubto adoo taxadaranna iyadana wax ka jiraa ma jiraan. maxaa laga rabaa oo qaadanaysaa oo jawaabta saxa noqonaysaa inaad joogsato haddii ay suuragal tahay. markaa suuragalnimaa fiirinaysaa sababta oo waxaa ku socoto kale speed 20 isgooskiina waa madaxa la soo gashay bareega haddaa qabtid waa bartankaaba dhex taagan tahayba. marka waxaa laga rabaa haddaad jiro qaadanaysidna jiro hore ka qaado haddii aad waa gudub laakiin waa horta mar walbaba waa inaad ku dadaashid inaad istaagi kartid waa inaad fiirisid inaad istaagi kartid istaagaana lagaaga baahanya oo xataa xaaladaas lafteeda oo iyadoo ku suurageli laha haddii inta badan tigidhiyaa lagu qaata waxyaabaha oo tigid speedka laisku siiyana ay ka mid tahay. inta badan dadka tigid speedka ka dooda waxay ku doodaan aniga yellow waan ku galay red aad jarta markii la yiraahdo waxay yiraahdaan aniga yellow waan ku galay marka adigu inta haloti anu red ma goonini yellow waan ku galay aan dhihileed waxaa ku roon inaad marka horeba iska ilaalisid. su-aashani waxay noqonaysaa calaamadani marka insha allahu maantay waa intaanay noo ahaanaysa hadduu ala yiraahdo asbuucina sidaana 5 su-aalood ugu soo deynaynaa wixii tale iyo tusaalena commenteska idinka sugeynaa fi amaan illah.